inkastuu durdurto dooxyada muquuro ku dabaasho webiyada ama raacadaad weyn dad hore wuxuu yiri abidkii ma daahiro mana daayo warigii waxa diintu necab tahay doofaar waa halkiisii xasan dhooqayste oo qaadkii soo furay roob la baahane oo qaadka Kenya ka imanaya commission laga siiyay iyo umuuro kale oo isa sita wallahi qofta dumarka ee qaad walaha ee hadlaysa baa xasan dhooqayste 1070 jeer caqli dhaanta warba lama aragtan iyo lama maqashan oodaheedii sidata ee subax walba inoo hortaala bari ila daawada idinka ayaa arku doonay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل توعنا ونكسر دبان مضى الصومالية قوم كستي قور كستا جوكتان بينها وحد كبر يا عمر دير يا عافمات يا عبادة صوبا واجي بريا وحكاية يا بيا بعد أركيساي هذا تكون عصبة الشنال كسبسكرايب كسر وفرقة بريخسون وتقف كوريا إلا صديق تيمي تحققون كي أرمي بشدة دورة إلا شوكتي وحتى عاشق خمي تايلا صدق وسين الشركة برنامج كله تواخد على إيه أركتي هذا كومنتي يقول هذه سلا دي تاجت هاي نوصل كذا ولا ما عرفتي يلا ما مقشي يلا ما شيكيانتي أو صباح والبينه هرتاجن ويجي بريا وواحد نجيا بيا بينه أركناي حسن دوغيست قاد كي مصوف صحن هراني دو كل شيء كان له كامبين لي هاي إنه وهو كياته وكامبين قرينيو إن مهمة ده واحد لود دقلي هاي أو لود دملي هاي دن كلال لي هاي وير واحد لود دقلي هاي أو لود دملي هاي دن كلال لي هاي كينيا waxa ay geed dheer iyo geed gaaban ay u saarnay siday dadkeena u nooleyn lahayd umada Soomaaliyeedna u baabi'in lahayd laakiin arintii waxa la helay xasan dhooqayste iyo madax kuti oo sidii la doorday ninka ogeydeen meedka u sujuuday meedka Kenyaatiga ee daalimiinta askartii umada Soomaaliyeed iyo gobolka Godo wixii loo ogaa ku sameeyay ninkii u sujuuday weeye dadnimo xumo iyo wuxuu yiri inkastuu durdurto dooxyada muquuro ku dabaasho webiyada ama raacadaad weyn dad hore wuxuu yiri abidkii ma daahiro mana daayo waligi waxa diintu necab tahay doofaar waa halkiisii damiir laawe dhooqayste waa halkiisii badadu kula aragtan iyo lama maqashan iyo laga sheekeeyaantan ila daawada iyo waxa laga taracsiinayo oo la leeyahay isu furka labada wadan baan isu furayna Soomaaliya kalluun dhoofinaysa oo Kenya u dhoofinaysa nugaal baa durdur weyday oo docmo looga aroray dad ma u qaadanayaan buu nugaal baa durdur weyday oo docmo looga aroray dad ma u qaadanayaan Kenya kalluun Soomaaliyeed loo dhoofinaya oo la geynaya wuxuu yiri yoonistu ninkii loo jiray wuxuu yiri habar baa iska hawle heelada inoo tumo buu yiri heelada intuu afartiisi wiil soo kaxaystay oo waxa weeye 5 wiil buu dhalay baa yoonistu markaasuu labana wuxuu yiri jiibta iyo jaanta ii qabta saddexdii kalena wuxuu yiri ariga u dhaca anuna dhalinyarada marka jaandeer uga tumaya markay soo yacaan ariga gura markaasuu halka uga sheegaya laxda dharan ha dhaafina laba jir waa lugu bari saddex jir waa siniin waa laxda dharan ha dhaafina shan jir waa shuwa shil laba gura buu leeyahay markaasaa islaantii waxa la waraariga waa lagu jira waray habar baska hawle waray habar baska hawle waray helada irato habar baska hawle helada irato maslaanta ha dhageysanina warkeedu leeyahay inamadiisana xulay laxda dharan ha dhaafina waa tabtii Kenya kalluunka Soomaaliya loo dhoofinaya muhiimadii loo socdo baan waa abdeen muhiimadii loo socdo baan dikada bageynaya ku soco kulan galabnimadii maanta ka dhacay aqalka madaxtooyada ee dalka Kenya ee caasimadda Nairobi ayaa si wada jir ah iyadoo ay u taagan yihiin labada madaxweyne ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo Uhuru Kenyatta waxa halkaas laga akhriyay qodobo labada dawladood inay ku heshiiyeen la sheegay waa labada dawladood baa heshiiyay warban hadda eegay labadii dawladood baa heshiiyay baa layna leeyahay maxay ku heshiiyeen maqalay warlay ma lagu waramay in waa bariyo dadku wada kaco la waraabshabir Soomaali damiirlay dhageysta waxaan akhriyay qodobadaasi heshiiska ah oo 10 qodob ka koobna xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya waxaana ugu muhiimsanaa in ganacsiga jaadka ee Kenya ay Soomaaliya u iibgeyn jirtay dib loo bilaabo muhiimadda loo socday intaasay ahayd in qaadkii
Soomaaliya ee maalin walba Kenyaatu 300,000 oo dollar bay berday ay qaadan jireen waliba 29 diyaaradood ayaa qaadkii laga soo dhigay maadaama in muddo ah dadka reer Kenya iyo gobolka Miira ay gaajo macluul ugu baqtiyeen dadkii Soomaaliyeed inta naxnaxeen lacagahoodii waxa way qayb u hadhay oo ay meel dhigteen oo reerihii badbaadeen oo gabdhihii qayli jiray ee stress ku furnaa iyo nimankii isbacsanayay iyo lacag la'aantii laga raystay oo odayaashii iyo caruurtoodii is arkeen oo waxa way ubadkii aabayaashood isbarteen oo waxa yani nimcaa la shaqeeyay baan ku geed dheer iyo geed gaaban wuxuu u fuulay Uhuru Kenyatta Xasan Sheikh Xasan Dooqayste sidoo soo saari lahaa isaga madax ku tidina socday waana soo saaray farmaajada xabiib malaayiinka waxa lagu dilay oo uu galabsaday waxa weeye sideed go'aan u yeelatay seekay uga hortimi eegay war adigoo heli kara inaan raranaysid maxaa ku falaysaa nin kale baa Xasan Dooqayste waniki meydka kufriga Kenyatka ururkucay dhageysta Soomaaliya marka bal Soomaaliya maxaa la siiyay Soomaaliya maxay faa'iiday qaadka waa la furay Soomaaliya maxay faa'iiday waxaan idinka damgeynay qaadka inuu kumishir ku leeyahay isaga iyo roob la baahan sida ugu dhaqsaha badan in la furo xadka Kenya iyo Soomaaliya u dhaxeeya oo muddo badan baxirnaa dibna loo soo celiyo isu socodka dhaqdhaqaaqa dadweynaha iyo ganacsiga in Soomaaliya ay Kenya u dhoofiso ganacsiga kalluunka ilaahay garanaya islaam Soomaaliya waxay dhoofinaysaa kalluun bay waxay u dhoofinaysaa waa waxyaalaha dadka malaha Xasan Dooqayste wuxuu u haystaa dadku inay caama yihiin inay bila caqli yihiin war dadka caqli badan baa ku jira dadka cilmi badan baa ku jira dadku yaqaan baa jira inaad dulaysan tahay oo aad dulli dusha saaratay oo aad Kenyaati u rukuucday oo aad wuxuu ku hayaa my brother Uhuru Kenyatta war kalluunka laga dhoofinaya Soomaaliya xagee la geynaya Kenya miyaanay baddi Soomaaliya Mandheera iyo miyaanay haysan iyo makaraysa hayay dekada aan lahayn miyaanay baddi Soomaaliyeed xoog ku haysan Mandheera iyo waxa soo dhanbay nagaale kalluunka ay ka rabta Kenya maxay tahay ayaa dhoofinaya kalluunka waa ay cid dhoofinaya mid kale ma warshadaad leedahay wadan warshada leh oo warshadii la soo shaqeynayso oo tiib galas hayay qandala shaqeynayso oo waxa way Muqdisho warshada ka furayin oo kalluunka la dhoofinayo oo ilaa xaafuun iyo qandala iyo baarga laga keenayo oo ilaa iyo halka iyo Elisa looga Kenya maxay haysataa ma kalluun bay cuntaa bas kalluun bay u baahan tahay muhiimaddu waxa weeye qaadka sidii loo dhoofin lahaa intaas loo socdaa isu socodkuna wax isu socod la yiraahdo oo jira ma jiraan waa habar ba iska hawhawle oo qowda maqasho waxna haw qaban waxa raba markay inaan idinka daba geliyo Xasan Sheikh iyo roob la baahane ninkii aad ogeydeen roob la baahane iimaan laawihi ayaa laynkan xiday Xasan Sheikh horta sidiisaba Xasan Dooqayste waa nin la haysto waa nin wax loo yeedinayo waa nin la leeyahay meesha anaga ku keenay ilaa iyo hadda wuxuu u qaadan lahayaa Xasan Dooqayste inuu madaxweyne yahay wuxuu u qaadan lahayaa in amarkiisu soconayo xagga laga fadhiyaa waxa leeyahay anaga ku keenay anaga baahalkeenay roob la baahane oo Nairobi ku qayri jiray ayaa laynka soo xidhay commission baynu ku leeyihiin isaga iyo roob la baahane ba umada Soomaaliyeed weyn midka ogaataa Xasan Dooqayste shilin ma dhaafayo commission buuna ku leeyahay qaadka Soomaaliya la keenayo ilaahay baan idinku dhaashay ma waxaad aragteen madaxweyne dhan oo dalkiisii daroogada la keenayo commission ku leh oo dadkiisii ku baaba'ayaan oo ummadiisu ku baaba'ayso waxaan kaloo idin hayaa aadan madoobe ninkii loo jiray mooshin baa ku soo socda haddii aadan madoobe mooshinka ay qaadato Xasan Dooqaystana waxaan idin hayaa sanadka maanta inuu soo dhaafay isagoo mooshin qaadanayo ummadda Soomaaliyeed si toos ugu kacayso maayad baa meel walba ka kacaysa wuxuu ku leeyahay commission buu ku leeyahay qaadka
isaga iyo roob la bahana aan ka soo shaqeeyay ninkii aad arkaysa guntiga u xidhay macawusta u xidhay أرسان مبابا أرمد الصومالي سو بابا أرجور ما سيد الرجور لا إله إلا الله مدحوينها يجي كيات وسجودية بختي أو دتكيسي لاي وأنكي أنتو كين نيروبي وريو أنا بوارم مسدتك الصوماليات بوارم ورحسن دوق استميان وهاي إنك أنتو نيروبي تجي يري مقدشو أنا كمان نحو مركي قرحضو لكن نيروبي ما كان نحا وكمان نحو يري مقدشو سيدا وكمان نحو نيروبي مركي قرحضو وريك الواقعيات دي نين كاني وادوشو وحوي ويا سومالي ويا يافكو برتني كانوا أحمر بانس واقعيات وكوكايان سرقة بل هو يا سوماليين بان يدلوا ذاقيا يلا مدحوينه نوغدغا والله وبالله وتالله يدا كدمير بدن او كعقل بدن او كغرشة بدن او كدمير فيعن هويدا سومالي بل الى دغيست الهي وين دكو داشو waa tan ilaa dhageysto waa hooyo Soomaaliyeed qaad wala ah bal damiirkeedii dadnimadeedu halku jooga eega xasan dhooqaystana meeshu jooga eega xalay maseexa wallahi hal cadiim inaan xalay seexa beeki xalay aha indahayga ku soo jeeda markii la yiri inaga wax la inoo saxeexayba ma jiraan كأنا قات كبا الله صحيح لو سوداي وح إنك الدن إنه وجرت إنك وحدة إنه وجرتو إنك وحدة إنه وجرت الله إنه مسحيح كاسو معها سو كيتوبيا معها سوماليا الدن يقوم تشرت واللي بحسنا ورسلانت اللي بحسنا والله دير سنة والله يكون شريعة كدمير بدن أو كفي عن أو كعقل بدن حسن دوقست إرساقات كنا ولقي ما عرق بتران قارحين ساسيت هاي ما قلبت الواحد ضل كي قالوا جب بهدل ومطيط وقبر صومالي هر مدحوينه نقول والله حسن دوق قبر داس عدالته ككينا وحدنا إنه وجرا ما تفس أنا وانو قدنا أنا ولقي سكان قدي ولقي أنا كجل سني رزق كلنا ولقي بمال كلي جم السوق هذا ناس صبح ساك عديار وحنوا هاي كان إلا تشوتشيو كان إلا تشوتشيو سببت وحن دي بهاينا وينو هيا ما بشرتو إلهي الرزق بوح وكوجري ذات سو سيدي هذا الرات ستاك سيريا كوا توقع صومال رجو ضدك دعية رزق إلهي ساسك كقدر بدل إليك واللي بعد بانكوري وحنكوري كن يتطبعات تير كدد نما بدن حسن دوقيست يروب لباهنه رئيس الوزراء ومعوس وحري قنتي وحري كوكايو حن يونيكي بختي وسجودي والله كبدا صادات وبالله كبدا صادات oo tallaay gabadha sadaato oo ka caqli badan oo ka damiir badan oo ka dadnimo badan ayadoo waligeed bay tiri saaqad kale ma arayaan qaadhayn hadana markay sidaa noqoto bay tiri ma ogolin dadnimada loo kala dhashaa qolada qaadka cuntaa mid walba waa cunayaan kan hadii loo keenana waa cunayaan miiroogana waa cunayaan laakiin samiiroogu waa miino Soomaaliya lagu qarxin rabo askarigii baa cunaya hawshiisii ma gudanayo كيش قالها هابا عنايو دولة وش قيني أما وحكي له وش قيني وحكي سبعة يعني با عنايا شقدي سيما جودانيو كي يقولي قال هابا عنايو شقدي سيما جودانيو ما فهمتي سواء اسكم مد والبوا اسكم مد لكن سه مينا لا يدير تايكي مينا لا يدير تايكي وقبضو أهلا هاي لك بس حنا العادي باقي قدام بيا وحوي هاي الشعب الصوماليين عقلك صاحبك هو ميلتك وحكيجيا قامودن إلى إسقطان أنا بدولة وحنا نوقف لنا إلى بدرال كناس صارتو إن قاتنا لقاك حيليو إن خيرات كذا نلو يبقيو إلى المشقات تبنو إلى المكان إسقاط تبنو كيما نلوسع لي أنا شو أنا جوري يسوى الله كلو كانوا خيرات كني هذي كلو كانوا وحنا ما هيستمر هذي قال لنا وبدلنا يو دواء عن لكن سقطنا الحين الحركة يكون مجرين كلون باللغة بدلنا يعني كان ينا كلون كذا ويكاني كتا صوماليا إنا لله وإنا إليه راجعون كيا كلون لو دوفينيا كيا وكلون كصوماليا لو دوفينيا دو قيست باهنه إيمان لاوي مدح كنتي باينا هيستا وحا انت لو سعودين واحد سلطان إلا ينوكينا حسن دو قيستنا كوميشن بو كلية صوماليا يقاد كوميشن بو كلية قادك نكا مدحوينها شيغانيا بربركا يا بابا عددكيسا بو لعاكو قاتي
روانك جيجيجا كدقي جيجيجا نكي وليجد ما دحين بان كوري مدحوينه Soomaaliyeed ee la doortay intii burburka intii ka horeysay madaxweyne jigjiga ka digay Xasan Sheikh Xasan Dooqeyste ninkii buu ahaa 12 milyan oo Soomaaliya iyo 9 gobol saxiixay oo jigjiga ka digay Ethiopia kaasa madaxweyne kaasa badad u doodaya ninkii yiri Muqdisho kama nooco Nairobi baan ka naxa manigaas nafka suwaysan iyo roob la baahane ayaga laykan soo xidhay الضوء بين وجهين وهو كياته مدنا نجس وحدي شري مدنا بختي قدو سجود شري كل مبارك عن الواحد وحلي إلى هذا مدحوينه يوحد دولة إلى هذا يوحد نادي صواري ما شفتوا علات تاجت العلة سالوا تشالله هيدين الله يدكدو إلى الدين تينا يدمير كينا وحوي هنا ولا يوم سيشان كنا برنامج الزوجارو جنا كان سبسكرايب صار لايك ترى كوبوب أنا جي مدحكوتي حصل كاين حلال كسر ريو وأنا ما دحمرني ورسل نباتينو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.